Waasuge iyo wiilkiisii waxa uu socda iswaraysi. Muuse ayaa looga warramayaa dhibaatooyinka miyiga oo dad iyo dunyaba haysta. Salaadii maqrib ayaa la gaaray. Markaasuu Waasuge intuu weysaystay oo waajibkiisii gutay warkii halkiisii ka bilaabay. In yar kadibna waxa Maariya raggii ay ku tiri kaalaya miiskaan cashayne. Waa xilligaa markii uu kashifmay is-afganawaagii oo duqu uu yidhi anigoo aan bun helin ma taabanayo cunto kale. Markaasay inta reer Muuse isdhugteen oo duqii ka fogaadeen ay iskaga faalloodeen is-afganawaaga meesha ka dhacay. Waxa kaloo ka sii daraa markii uu Waasuge ogaaday in Maariya aanay aqoonba u lahayn sida bunsharuurka loo dubo. Taasi waxay ka shiftay markii dariska laga doonay agabkii bunsharuurka iyo qof dubi yaqaan intaba. Waasuge waxa uu caddaatay in ayan reer Muuse ka suuragelin sooryada uu sugayay iyo sida uu u doonayaba. Dhowr ayaamood kadib ayaa Waasuge habeen Jimca fiid horradii waxa uu digri ka maqlay masaajid ku dhowaa. Wuxuu ka tirsan yahay duqu dariiqada Axmadiya. Markaasuu inta uu aaday goor dambe ka soo laabtay. Haddaba markii aqalka uu ku soo laabtay muxuu la kulmay? Waasuge waxa uu yimid gurigii oo ay reer Muuse ku casuumeen saaxiibayaashood oo isugu jira rag iyo dumar. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee nagaha caddaanka qaba cidi kama maqnayn habeenka. Qaar kalena waa ay ka soo qayb galeen casuumadda. Waasuge wuxuu albaabka ka soo galay iyadoo muusig qabow uu dhacayo oo wiilashii mid waliba inta gabar isku looxshay garabkeeda uu ku hurdayo. Dhalinyarada meesha ku kulantay labiska ay qabaan wuxuu Waasuge ku xasuustay wiilkii dhaanraac ahaa ee baabuurka kala soo raacay magaalada Jowhar. Duqii Cabbaar ayuu dhalinyaradii isha la raacay isagoo isweydiinaya talow meeshu ma tahay aqalkii wiilkaaga Muuse. Markuu in badan taagnaa isagoo yaaban ayaa wiilashii midkood inta uu soo fiirshay waxa uu ku yiri duqa ma iska soo galaysa aqalka adeeg alla. Markay intaasi dhacday ayaa Muuse hadalkii maqlay soona orday markuu arkay qofka lala hadlayaa inuu yahay aabihii waxaana uu yiri aabe ma soo gashid maxaad albaabka u taagan tahay. Markaas ayuu Waasuge shaki baxay inkastoo uu garan kari waayay waxa meesha ka socda. Duqii gudaha ayuu soo garay. Muuse ayaana dhinac socda oo uga warramaya in dadkani ay yihiin saaxiibayaashiis Maariyana ay casuuntay. Inta ay dhalinyarada ag marayaan cayaartii sideedii ayay u socotaa. Waasugana laabta ayuu ka hadlayaa oo waxa uu isleeyahay casuumadda caynkani maxay tahay. Culimo iyo waayeel kale midna ma joogo. Ari lama qalin oo anfaco kale lama sii diyaarin. Horana layguma sii sheegin. Waa cajaa'ibe casuumaddanu waa caynkee. Duqii waxa uu caddaatay in casuumaddu ay tahay caways dhalinyaro. Kadib markii uu arkay sida ay wiilasha iyo gabdhuhu isu qabqabsanayaan. Waasuge waxa uu goostay inuu dhalinyarada u jeediyo waano iyo wacdi si ay cawayska isaga daayaan. Isla markiiba aadaan ayuu Waasuge ku dhuftay. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Muuse aad ayuu aabihii uga carooday. Laakiin wax uu sameeyay wuu garan waayay. Ciyaartii way joogsatay, dhalinyaradiina way wada aamuseen. Markaasi Waasuge agtiisa ku soo wada urureen. Maariya dadka dhexdiisa ay hadba dhan u ordaysaa. Gabdhihii kale ee caddaanka ahaa mid waliba ninkeedii ayay su'aalo ku furfurtay iyadoo sababta weydiinaysa. Markuu aadaankii dhameeyay Waasuge waxa uu dhalinyaradii u jeediyay hadallo waana ah. Kadibna isagoo ku luuqaynaya ayuu u tirshay masafadii wacdiga ahayd ee Sheekh Axmed Gabiyow kuna saabsanayd in aadanuhu ku waana qaato waxyaalaha dabiiciga ah ee Ilaahay abuuray naguna hareeraysan. Isagoo yiri webiga kii warwareegsanaa iyo samada waaban ee marna aan soo wabdhihin baxarka waalana Ilaahna waabiyey waagaa baryaaya marna la weynaynin kuwa waleyl iyo waduur akhrinaya ayagu way iskula waana qaateen wejigay weyse la daa'imayaan. Markay intaasi dhacday ayay dhalinyaradii qaybsantay oo u kala baxday qaar wacdigii iyo waanadii ay saamaysay iyo qaar ka carooday si weyn uga xumaaday ciyaarta laga carqaladeeyay. Kuwii ugu xariifsanaa wiilasha ayaa markii dambe isku dayay in duqa xasil wax u dhacsiiyaan iyagoo dantoodu ay tahay in barnaamijkooda ay dhammaystaan habeenkaasi. Laakiin wiil yar ayaa xaajada qarribay oo inta si lama filaana hadalka u qaatay duqii ku yiri adeer annagu inta yar ee aynu adduunka joogno waanu tumanaynaa aakhirada aad sheegaysid yeelkeed. Waasuge aad ayuu weertaasi ula fajacay ilaa hadalba uu ka soo bixi waayo. Markuu xoogaa aamusnaa odagii
ayuu inta yaab madaxa la ruxay dhowr jeer ku celceliyey hadalkii uu wiilku yidhi ee ahaa aakhirana yeelkeed hadal waana ah ayuu Waasuge ku dheeraaday wuxuuna dhallinyaradii tusaaleeyey inuusan ilaahay dadka u abuurin in qof waliba uu ku kaco wixii ay naftiisu jeclaato markuu in badan waxyaalaha diintu nafartay u faaninayay waxyaalaha inaga reebtayna uu caynayay ayuu ugu dambayntii dhallinyaradii u tiriyey baydad ka mid ah masafo kale oo Sheekh Axmed Gabyo uga faallooday waxyaabaha aakhira qabsan doona qofkii aan camal wanaagsan falin inta adduunyada uu joogo waxaana uu yidhi rugtii qiyaamo haddii la roogsado rifata naar ahna raab ka soo go'o kuwii rogaayayna reebi waayaan rasuulka suubanuna ku reed maro haddaad ka raaracsatid iska kaa rido risaalihiisii horaadan raacine rabbigay weynuna raalli kuu noqon ragow haddoo qalbi waa rafaadaa dhallinyaradii quus ayay markan ka gaartay sidaas ayayna ku kala tageen Maariya aad ayay uga xumaatay barnaamijka habeenkaasi ka dhicisoobay aqalkeeda ayayna dhaxda ka soo xiratay cara daraaddeed habeenkaa reer Muuse islama hadlin sidaas ayaana waagu ugu baryay Waasuge qolkiisii ayuu iska seexday isagoo ciil bastiila ah asal ahaanna ka xun waxyaalaha ay dhallinyarada ku kaceen sababna uga dhigaya edab darro ay horseed u yihiin reer Muuse subaxii dambe wuxuu qof waliba soo toosay isagoo cabursan oo si dhib ah hadalku uga soo baxayo kadib markii la quraacday ayaa Muuse sheeko sarbeeb ah kuna saabsan waxyaabihii xalay dhacay uu u bilaabay aabihii Maariya kama qayb qaadan sheekadaasi maxaa yeelay waxay si weyn u dareensanayd inayan isfahmi karin iyada iyo duq Waasuge Muuse marka uu sheekada bilaabayay waxa uu barbaryeelay bal in si aan rasmi ahayn ee iska maandhugad ah aabihii ugala tashado xaajo uu maalmahaasi ku talamayay Maariyana ay la ogeyd Muuse markii uu isiri duqa caradii way ka degtay ayuu si qabow u yiri aabe waxaan jeclaystay inaan kula socodsiiyo kaalana tashado ra'yi aan go'aansanay aniga iyo Maariya kuna saabsan inaan shaqada dawladda ka tago